بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة haddii rabbi xukumo waxaynu wax ka sheegi doonaa dersi koobana ku saabsiisan ibtilaa'aadkii ama imtixaankii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu mariyey nebiyullaahi ibraahim inagoo og maanta muslimiintu waaqaca ay ku nool yihiin iyo dhibta haysata iyo wixii laga rajaynayey oo ilaahay qur-aan ku tilmaamayo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummaddii dadka u khayr badnayd ee ilaahay dadka u soo saaray inay yihiin wakadalika jacalnaakum ummatan wasata waxaasoo ammaana iyadoo qur-aanka ay ugu taallo iyo mustawaha maanta ay dadka muslimiintu joogaan iyo sida ay u jabeen waad mooddo inuu xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee thawbaan uu warinayay abi daawuudka ku yaalla oo runtii aan odhan karno waa mucjiza min mucjizaati الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam sheegaya wadci ay muslimiintu gaadhi doonaan yuushiku اlumamu an tadaca calaykum kama tadaca alakalatu ilaa qascatiha uu nebigu tilmaamaya inay wakhti dhici doonto dadka muslimiinta ay isugu yeedhan doonaan sida xeedhada dadka wada cunaya ee wada leh casuumadda ay isugu yeedhaan saxaabadu su-aal bay weydiiyeen ma yaraan waayo saxaabadu iyagoo yar ayay dunidao dhan iska celiyeen labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa ee waagaa jiray bershiya iyo romanis waxaan kontaneeyo sano dhammayn bay kaga takhalluseen oo ay ka taliyeen dunidii markii la deganaa intii ugu badnayd dadkii hamigaa siday ama xooggaa lahaa markii la yidhi waa laydin boobayaa oo sida loo cuno xeedhada loo wadaagaa laydin wadaagayaa su-aashay nebiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam ee madaxooda ku soo dhacaysain waxa weeyaan ma intay madhaan oo yaraadaan oo wax yar noqdaan baa markaa la boobaya waxay idhahdeen wa min qilati naxnu yowmaydin maalintaas ma maalin aanu yar nahay oo dee baaba'nayba nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam tiro hadday tahy bal antum yowmaydin kahiir buu nebigu yidhi tiro marka laga fekerayo maalintaasi waa tiro badantiin buu nebigu ku tilmaamay laakiin waxaad tihiin guhaa'un ka guhaa'i say daad xoorta daadku sido daadku markuu socdo xashiish iyo waxbuu soo qaadaa waxaasi wasni ma leh oo ma dhaadhacaan shakli ma leh oo kolba meeshuu daadku maraa unbuu midabkoodu noqdaa laantii wale daadka soo gashaaba badh bay la hadhaa yacni waa dad aan wasni iyo macno iyo qiimatoona lahayn bay noqon doonaan buu tilmaamaya waxaa kaloo nebigu ku tilmaamay markaasi waxa dhici doona waxaa ka mid ah cabsida gaala idinka qabta baa ka bixi doonta walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum ilmahaaba laydinkama cabsan doono waxaa kaloo dhici doonta buu nebigu yihi idinkana wahni baa laydinku soo tuuri doonaa wahnigu waa kelmad carbeed nimankanina carab quxa bay ahaayeen waa yaqaaneen haddana waxaad mooddaa masaladu inay midmadow gashay oo ay markaa nebiga weydiinayaan wahniga kani waa noocma wuxuu nebigu ugu tilmaamay markaa wahnigaa idinku dhici doonaa inuu yahay adduunyo jacayl iyo geeri nacayb yani maanta muslimiinta dhibta haysata iyo mashaakilkay taagan tahay waxaa maqashaan hadda magaalo ghaza la yidhaahda iyo waxaa ka dhacaya ghaza inaad ka war haysaan mooyaane waa meel ballaceedu 5 mayl iyo badh meelaha ku dhadhow yahay ballaceeda gebigiisuba dherarkeeduna waa 25 mayl marka la isku wada daro
وبقول يكوبي أفرتن كيلومتر سكويرة بقول يكوبي أفرتن ميل أو سكويرة ويا حق يستعمل بقول يكوبي أفرتن كيلومتر ميل أو سكويرة وأدونك وحي قال شوغور دم يتميان وحي هم الهيستور دلوغو قراعي مسلم اور دم يندعوان أيو بل الدعوة قرآن ما هي أيو حجين أيانا وحيان حقها كبحين وحقها كبحين وقد يرداد خضوطوها لغا آسو وما الله بعيدها كلا حدينين إيانا يمعوديين وحان السيداي ودعين عيداتان سيداو تلمام أيو خبيرك عبد الله نفيس اللي هذا وحليه مسلمين تير قلبين شن مرحلة ضوء بيسلسوا مرين بولي مرحلة كواد وحي هيدولي ومحطة العنف وكسر العظام ومدافع يدل يوح والبوال يقول لها ومركي يجو استعمار بينه الشيء يعني ومركي قال سودو شيء فرنسيس له إنجليز له هولنديس له جرمن له يوروب أردن وواحد يقوم هيستي وضطه هي عالم الإسلام بكسود شيء طليان إلى مال والبلة مسلم كمركز مدفع بالوقتهم يوحي هو بالهيئ ولا لفتشبيه مركي لفتشبيه كدبنا مرحلة لبعد لقاليو ليها مرحلة التجزئة والتقسيم أول وطن مسلم واسكف ربيها يعني عيد والبعيد كلوه يلسو والله كلا جوبا بيجي إذا كرر ربل باتين هل كامر دافع كرتان إذا نرر ربل باتين هل كامر دافع كرتان مقعية عصبة أن شرين أي لو بحيي إنت جوبا يرلو حل حريقي مرحلة تامر كيسور دافتي يعني سيده هيلب كالله قيبصده الله قيبصده يو انت شر ليسوي من ليدادو هبلو ادغو انت قادو انجليزو انت قادو فرنسيسو انت قادو طليانو انت قادو سيده خولها الله قيبصدي كدبا waxa soo baxday hadana marxalad saddexaad uu leeyahay marxalad at-taghrib in aqaa'ida iyo afkaarta iyo dadku waxay rumaysan yihiin la bedelo في التعليم والإعلام والاقتصاد والسياسة وصناعة النخب وكل شيء إن لبدلوا أمدي مسلم كهيدا مركو هوري الدين ونرميسري حتى هدم بابتو دين قرية رميسري حكالو أجرا والله سكو معمولا ما يرميسري وحلو شيء تعليم عن تعليم كيدي أهين إعلام عن إعلام كيدي أهين اقتصاد عن اقتصاد كيدي أهين قاب سياسات قاب سياسات كذا هاي وحلا أبو ري نخب ضد معمولة أو هجامية وضد كاسينة يهين نبنين كوكبدية أفكار قالكو كهذا أفكار قالكو كهذا أنت كهذا شيء نقطة عند معمولة إسا مرحلة أفراد بالسوق أرسلوا لي مسلمين طوع للحق الاقتصادي dhaqaalahoodu inuu ku xidhnaado dhaqaalaha wadannadaas oo iyaguna raw materialka laga soo qaado inta la soo hagaajiyana dib looga iibiyo marka kaasi hadduu ka iibsan waayo waa bakhtiyaysa hadduu ka ina dhaqaalaha wadannadoo dhan ku xidhnaato intaa yar maxadda shanaad baa la soo gaadhay maxadadatani waa wadcigu inuu sidaa ahaado yaa ilaalinaya reer galbeed waxay u arkeen kos badan inay ku joogayso inay ilaaliyaan inaan sidaa waxba iska bedelin laakiin waxay heleen cid ay ka dhaadhiciyaan inay dowrkaa qaadato ay ku dhaqaalo siiyaan yuhuudda caalamkaa la soo ururiyey dad baa dhulkoodii laga qaaday waa la dejiyey waxaa la yidhi wadcigaa inaan waxba iska bedelin ilaaliya kii yidhaahdo hub baan samaysanayaa garaaca kii yidhaahdo nuclear baan u dhaqaaqayaa tuma kii yidhaahdo waxa kan garaaca all daddy weerka oo dhan idinku qabto shaqooyinka foosha xun lee dowladaha waaweyn ka yara cabsanayaan oo dhan idinku noqda kuwa fulinaya annana hub dhaqaale qaanuun sharci waxa u baahantihin
وعررت عنا هلا السيالة ليه مريكان وحليه فيتو واحد هذا United Nation انتي فيتو كرد عداي مريكان سمي نص إن كبضا وحلقوا استعمال حقوق فلسطين اللي وأوده أما إسرائيلنا لغو تاجيري وأن لغو عيبين أما هو حكسور راعي إذن هذا مرحلة داسي شوكته أحد الخبراء في الصهيونية عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه نيكي لورنجري أيها وحيوري إسرائيل وحي ودي كان تابو لي مانت مريكان هدو شقادا نساقو قبصان لها بولي ويران وحو باهن لها شن حاملات الطائرات وميشة شوكتا مراكيبتان ديورادها يوحو دي هكو دا بس تشان كميدو باهنان لها بولي هل كمركب إنو عاصينا 10 بليون باكو بحا وحو هلاي بي لي عد إساقا قولي متى أفكارتيسا 10 بليون وسيو marka Israa'iil waxay la qiimatay hal xaamilatu taayira marka Mareykan loo eego halkuu shanka keensan lahaa mid buu helay waliba ay ula socoto inaan isaga dadkiisu dhimanaynin in cid kale ay noqonayso cidda dhimanaysa intuu xaamilatu taayiraadka meesha keenay oo Israa'iil ayuu haddana yidhi aniguna dhex baan idiin ahay anaa taswiyadiina iyo waxa isku haysaan iyo cidda garnaqaysaana waa aniga wadciga muslimiintu saasuu u nooliyey ووضع وضع قرنيسا وعن ربا مركا إن قصة النبي إبراهيم وكور ربا في سورة البقرة سيدة دبا قرآن كنبي الله إبراهيم شان يلا باتن سورة ضوضو قرآن كم دبا إلهي مقعيسا كشاقة وحانو مقعيسا كسا أرور القرآن لحدا هي السقال شيربا مقع النبي إبراهيم صار مش هو الرئيس القرآن كوكويا له وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وهل آية بولي أفري الله تنادي من سورة البقرة وهي كده بيصير قصدي بستانكي كعبة إيو وحي لسي هالمالا آية إلهي وحلي وحد حستانون النبي محمد وضدك وشاكتا إذ ابتلى إبراهيم ربه مركو الابتلاء افتعال من البلاء مركو امتحامي اختباري إبراهيم تست بلقلي مدى إيمانه مدى التزامه marka alla itixaamay nabi ibraahim dadka u sheeg baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala maxaa lagu itixaamay nabi ibraahim aayaddu ma sheegin bikalimaat nakira lagu soo arooriyey mufasiriintu warar bay sheegaan laakiin quraan iyo xadiistoona kuma soo aroorin exactly muxuu yahay ilaahay wuxuu ku tilmaamay kelmado ayaa lagu itixaamay وحانا ليدي امتحان كاسي فأتمهن الفاء للتعقيب والترتيب مركب وفلية إبراهيم وحي لفري لغو اتحامي امتحان كاسي امتحان نوع دون نغوكرة ويا الأصل القاعدة العامة وحي تهيبا بشر كإن لا اتحامي بل علماء بركود با waxay dhahdaan waxa loo abuurayba waa in la intixaamo cibaadaduna intixaamku bay ka mid inuu dhahna binaadamku in ilaahay caabuda ayaa loo abuuray waxay culimada qaarkood leeyihiin in la intixaamaba loo abuuray cibaadadu waxay ka mid tahay wixii lagu intixaamay cibaadada ka mid way ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi فجعلناه سميعا بصيرا بنادم كوا أبو الربا إلهي إلهي وعنبوف ليسجيي أمشاجة مختلطة أيها لغا أبو ري وهي بيسو تغيب لغا أبو ري استثناءات يرمو يعني عيسى نبي الله آدم مركا لغا ربا تكلاين وقالنا وح لغا أبو ري وهي بيسو تغيب
إلهي وحط الماما يا وحان الله أبوري إن لا اتحام إن لا اتحام إذا وحلنا ابتلاء أصليا وقدر مقدور على بني آدم جميعا وشيء بني آدم ودم ومر يلا وطلق لي ابتلاء قاسي إلهي السنن كيس كمدي أما هم نقضى كقدري دعدوين كدولي ذا كدعيا أما هم نقضى كتشريعي هي التكاليف الله يسفري وحبوا امتحان امتحان كاسدي بني آدم كو جوابان بعد درجته ذا الدون يتآخر بها أدونك عند الله مستواها كويا لنا سوى جواب تعطيك بحساب امتحانك آخر منزلة ديالنا إنسان وجواب تعطي امتحانك كبحث ولذلك ما إلهي القرآن كوحنا وقلت المامية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين waxaanu dadka ku imtixaami doonaa baa ilaahay leeyay cabsi wax ka mid a gaajo wax ka mid a xoolaho ka yaraada wax ka mid a naftoo yaraato la laaya wax ka mid a midho iyo abaaro yacni maqaadir tiro badanna lagu imtixaami doonaa waxaana ilaahay yidhi wabashir الصaabiriin kuwa sabra u bushaaree imaamnimada adduunka inuu qofku imaam noqdo yuqtadaa bihi fi dunya wadiin ba in qof lagu dayan karo u noqdo laguma helo buu qur-aanku tilmaamaya ilaa biالصabri wاlyaqiin mooyaane wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu biaayaatina yuuqinuun ilaahay wuxuu leeyahy reer banu israa'iil intuu ka soo warramay waxaa dhexdooda ka mid ahaa a'imma imaamku dee waa imaamkaas iyo kale waa qof lagu daydo oo khayrka lagaga daydo a'immo sharka lagaga daydana waa jiraan sida ilaahay fircoon iyo gruubkiisa uu ku tilmaamayo a'immatan yadcuuna ila annaar buu ilaahay ku tilmaamay laakiin halkan waxaa laga warramayaa imaamnimada khayrka ee dadka hanuuniya waa manzilo lagu gaadho maxay lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun marka ay sabraan takaaliiftay ku sabrayaan maqaadiirta dunida ka dhacaysay ku sabrayaan wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun yaqiinna way ku qabaan sharcigan ilaahay iyo waxaan ay fulinayaan ay raacana waa kuwa yaqiinsan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala maamuus iyo mudnaan markaa meel inta layska fadhiista lama helo dadka meel iska fadhiyaan waxba jawaab saxa bixinaynin maamuus ma helaan ibtilaaguna iyo imtixaanaadkuna macaadinu naas bay soo saaraan dadka qualitigooda soomaalidu waxay yidhaahdaa inta nabadi joogtaan ninba laba nin leegi yani marka dhibto aanay jirin dee dadku safulawalkana waa iska wada iman karaan bariskoodana waa iska wada cuni karaan waanay si wada eegi laakiin mashaakilka iyo imtixaanaadku markuu dhaco iyo bini aadamku nawciyaadkiisu muuqda sidaa awgeed a'immadu imaamma noqdo ilaa iyo imtixaanka uu soo maran mooyaane ilaahay muslimiintii beder dhibtu soo gaadhay wuxuu tilmaamayay waliyumaxis allahu aladiina aamanuu tamxiis waa la kala saarayay dadka آخرنا إلهي وحلا يا ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أيها الأحبة ابتلاء مركة ووحب بني آدم ككوالتي سلوص وصاره نبي الله إبراهيم مركة ومن أئمة المبتلين بكمله ذاتك إلا يتحامي ذاتك امتحانات كابو كجرا امتحانات تربى ذنبا إلهيك ورميا إلا مريا كو قرانكو وحيابو ينوغا تلمامي قود مرو مينو تلمامي دونا وحكم ده
إلهي وحط المامين تلكي كهري مادين أبيه كهري dadkii ugu dhawaa qoomkaaga yaa aabbahaaba hadday ku diideen cidhiidhi intee leeg baad filaysa meeshii aad joogtay ee aad xaqaysa lahayd gaadhsiin odaygii ku dhalay ee kuugu dhowaa markuu ku soo dayriyo ee bulshadii kalena kaa hor timaado waa dhib aad u weyn wuxuu isku dayey inuu aabihii la hadlo aabihii waa diiday sida quraanka in badan oo aragteen iyadoo laga warramayo ilaa uu yidhi wahjurni maliya wuxuu isku dayey tolkiina waa soo diiday wuxuu isku dayey boqorkii meesha haystay isna waxaa buu yidhi war aniga wax nool waxna dila boqorkii meesha joogay wuxuu sheegtay ana iyo waa umid qaala ibraahim ilaahay wuxuu qur-aanku tilmaamay markaa ibraahim yidhi فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر إذن أبيه قوم كيسي دولتي سياسة نمكي هيستي انتو بوادي لي إلى قاعدي إن لا يحرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إلهي نولي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إن لقوا لغو تلقلي إلهي بابد بادي سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم تلكي يضط مركا كهري مادين مودة بعين ومتش العين أو حقاتين بريكا الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده مفاصلة تامة أي قاطع نبي الله إبراهيم امتحانات كلا قليه وحكم إذا مركها أخراق المامي إنه هجروده وطلقي يودن كيسية وحي ودان مكتبه dhulalkii uu hijrada ku tegay haddana dhib kala kulantay si axaadiista nebigu tilmaamayso masar boqorkii joogay waaba kii dee lafihiisa daayay islaanta ka qaaday ee ku talagalay saara inuu qaato iyana waa ibtilaa kale iyo imtixaan kaloo la geliyey ibtilaa'aadka qur-aanku ka warramaya tirada badan le waxaa ka mid ah ibtilaa'aad adag oo tashriiciya سؤال مدد لب إلهي سبحانه وتعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين وأهجرود إلهينا وحلي وبشرناه بغلام حليم بالوغو بشاري مركو هجرود المودلة علمه بالليلي شرع وحشيك يا إلهي كو وحيو ذي قورع يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى in da-a oo gaboobay oo ilmo quraha dhalay oo la yidhi ilmahana gowra sharcigaasaa ku farayaa la yidhi waa waxyi ilmihiina waa aqbalay gulaam xaliimaa ilaahay ku tilmaamay mid dulqaad badan waan argagixin inuu yahay yaa abati ifcal maa tu'mar isna waa aqbala ilaahay wuxuu tilmaamaya markii uu dhinaca dhulka u dhigay وأغنى إلهي وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إلهي وحكت المام إن هذا لهو البلاء المبين وامتحان عد وين بقى إلهي كت المام جملة اسمية وإنكم براب مساء لهو البلاء المبين إلهي وحكت المام امتحان آد وعد وآد وين بقى إلهي تلمامية إلهي بقى مركان أبد بادي إذا النبي إبراهيم قرآنكو امتحانات تربضا وإن التفسير كذا هدا وتعجنين أيال المريض حصل امتحانه إنه كود يقول يستيقظ قرآنكو تلمامية أيضا إنه تاجنا إلهي وحلي فأتمهن وحين لقوا يتحامل وهذا ما يسترى
meelo kale oo qur-aan ka mid a ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wa ibraahiima aladii waffaa ibraahimkii dhammaystiray oofiyey wax kasta oo la weydiiyey ama lagu itixaamay sidii ugu fiicnayd ugu kacay meelo kale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilaahi xaniifan walam yakun min almushrikiina shaakiran liancumih ijtabaahu wahadaahu ilaa siraati mustaqiim sifaadkaa tirada badan loo dhammaantood ammaana nebi ibraahim inuu keligii ummad ahaa alumma kitaab ilaahi usoo aroortaa jamaaca ka mid a nebi ibraahim waxaa lagu tilmaamay inuu keligii jamaaco yahay bay idhahdeen ummadu halkan imaamnimay ugu jirtaa bay idhahdaan laakiin imaamnimadan macnahay sidaa ah jamaaca wixii ay samayn lahayd oo dhan baa qof hore ku soo arooray waxaa laga yaabaa sifaadka wanaagsani inay jamaaco dhan ku jiraan kani deeqsi yahay kani cibaado badan yahay kani waxan yahay laakiin jamaacadoo dhan haddii qof qura la iskaga dhigo macnaheedu waxa weeyaan keligii baa matala ibraahim waa umma baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waa qaanit ay muطiic lilah waa xaniif mid weecsan xaniifnimadu waa qallooca sideeda la yidhaahda qofka waagidaale maxaynu idhahdaa axnaf yacni wuxuu ka weecdaa xumo iyo shirki iyo waxaasoo dhan buu maa'il ka yihi walam yakun min almushrikiin shaakiran liancumih waa mid mahadnaqa baa la yidhi imtixaanka qura sabirkiisa kuma guulaystee nicmooyinkana waa mid ka mahadnaqa baa ilaahay yidhi ijtabaahu wahadaahu ilaa siraati mustaqiim waa mid ilaahay doortay oo jid quman waxaa ilaahay ku ammaanay ina ibraahiima la xaliimun awaahun muniib nebi ibraahim inuu yahay mid dulqaad badan oo noqosho badan oo toobadkeen badan oo ilaahay u laabta waxaa ilaahay ku ammaanay waina min shiicatihi laibraahiim id jaa'a rabbahu biqalbin saliim mid laabtiisu ay nadiif tahay oo qalbigiisu ammaananyay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay idan waxaa muuqata ibraahim wixii imtixaan la geliyo dhan markhaati alle inuu haysto oo ah inuu dhammaystiray bacd allaahi markhaati loo baahayay ma jiro cidda ilaahay u markhaati kacay waxa laaliya wuxuu lagu itixaamay ama imtixaan qadariya ha noqdo ama imtixaan takliifiya ha noqdee wixii lagu itixaamay oo dhan sidii ugu wanaagsanayd inuu uga soo baxay wuxuu joogaa markaa booskii abaalmarinta in la abaalmariyo ilaahay wuxuu ku abaalmariyey markaasoo yidhi innii jaaciluka linnaasi imaaman dadkoo dhan waxaan kaaga dhigay baa ilaahay yidhi imaam nabiyullaahi ibraahim diimaa samaawigaa cidda ku abtirsatoo dhammi inuu iyaga ka mid yahay bay sheegataa ilaa qur-aanka ilaahay leeyahay maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima cid waliba ibraahim wanaag bay u qoraysaa ambiyada kale badh la dafiraa jira maalan kristanku dee qayb bay dafirayaan yuhuuddu qaar bay dafirayaan nebi maxamed qaar baa dafiraya ama nebi ibraahim alkullu muttafaq calayhi inuu yahay imaam yuqtadaa bihi ilaahay markaa wuxuu yihi waxaan kaa yeelay imaam baan dadoo dhan kaaga dhigay khayrka lagaga daydo imaam baad u tahay a'immada kaa dambaysa iman doonto o dhan ilaa iyo nebiyullaahi maxamed ilaahay leeyay uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin nebiyullaahi maxamed baa ilaahay leeyay waxaanu kuu waxyoonnay raac diintii nebi ibraahim jidka nebi ibraahim raac ibraahim oo ku sifoobay inuu yahay xaniif wamaa kaana min almushrikiin qofka cidlada iska fadhiya aan nolosha macmacadeeda dhex gelin imaam ma noqdo imaam waxaa noqda qofku markuu mawaaqif yeesho maalan dunida waxaad maqashaa hebel waa haliyey
waxa laga yaabaa maalin dagaal uu galay inuu ku guulaystay dabeetana waddanka oo dham yidhaahdo waa ninkii maalintaa dadka ka waa mowqif waaxid ninka mawaaqiftu galay oo dhan guulaystay ka waran ee ilaahay uga markhaati yahay wixii uu meel istaagay oo dhan inuu guulaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala booska oo boos ka sarreeyaaba aanu jirin nebiga markii la dhigay wuxuu dalbaday dalab uu ilaahay weydiisanayo ilaahay muxuu weydiistay qaala wamin duriyati ilaahayow kuwa aniga iga beermana sidaa ka yeel wax ka mida ilaahay ducadiisa waa ka aqbalay qaacidana waa loo sheegay waa laga aqbalo dee qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa in duriyadiisa isaga iyo nuux laga dhigay maxay nebinimada iyo kutubta iyo xikmadda in iyaga lagu soo dejiyey oo dee labadii wiila uu dhalay baa ilaahay laba nebi u ka dhigay nebiyullaahi ismaaciil iyo nebiyullaahi isxaaq iyo isxaaq buu sii dhalay oo loo sheegay yacquub iyo nebiyullaahi yuusuf iyo ambiyadii dambe ka dambaysay ee tiro badadnayd ee ku abtirsatay ilaa nebi maxamed laga soo gaaro عليه الصلاة والسلام لكن لما أردن كوا ضشينا وكردنا أيمو إلهي قاعده الشيء سنة جارية ودقة كلنا نقموها لا ينال عهد الظالمين أنا قبل لك يقوم قارب إلهي هو ظالم كا معنى هذا ما هي وحي جد كاغير راعي إصلاحين مسلمين وفعنا هذا ويهليانا بالمركة يقولنا أما الظالمين ولو إبراهيم هدله ظالم هذا جدك كوى عطو إبراهيم وبوس كاتاغن إلهي وكنت المام القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا إلهي كشغين خليل يهي خليل الرحمن إنه يهي أي إلهي ماشي لقوا أبا المريني وشغين قال لا ينال عهد الظالمين aniga ballankaygu ma gaadhaya baa ilaahay yidhi kuwa daalimiinta intii waddadaa raacda ayuunbaa helaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ballankiisa waa ka aayaadka kalena ilaahay ku tilmaamaya wabasharnahu biisxaaqa nabiya min alsaalixiin wabaaraknaa calayh wacalaa isxaaqa wamin duriyatihima muxsinun waظaalimun linafsihi mubiin dhashiisu ma wada wanaagsanaan doonto dadka ku abtirsada nebi ibraahim iyo nebi isxaaq ilaahay waa barakeeyey baa la yidhi laakiin duriyadooda waxaa ka mida baa ilaahay yidhi muxsin iyo daalimun linafsihi mubiin waxaana ilaahay ballan qaaday ilaahay ballankiisa iyo wanaaggiisu inaanu gaadhi doonin loo ballan qaaday nebi ibraahim daalimiinta kuwa ah taa macnaheedu maxay tahay muslimku intuu meel iska fadhiisto inuu yidhahdo ilaahu gaalada jebi ilaahu muslimkana u guuleen dabeetana aad qaxwahaaga cabto oo malaynaysaa inaad ku helayso inta muslimku ka seexda wixii la faray iyo imtixaanaadkii la geliyey haddii cid iska fadhida un wax la siinayo nebi ibraahim baa ilaahay odhan lahaa wax walba waad ka soo baxday waxaad dhashay oo dhanna way helayaan guusha iyo imaamnimada iyo wanaagay wada helayaan laakiin ibraahim oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa sidaa ugu ammaanay ayaa waxaa loo sheegay cidda ku abtirsata walow ay adiga kuga abtirsadeen nebigaaga halkaa gaadhay maqaamkaa ilaahay gaadhsiiyey ee watakhada allahu ibraahiima khaliilan la yidhi oo imaamun linnaas dadoo dhan looga dhigay hadday sunnada ilaahay ka waacaan dariiqa saxa hadday ka waacdaan jid kale hadday raacaan laa yanaalu cahdi الظaalimiin baa ilaahay yidhi لسنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا أيها الأحبة قرآنك مركا وحو سعد الشيبية قرمو مسلم كقولي سنكرا قرمو سجبي كرا قرمو مقعي مأمو سيلي كرا قرمو أئمة للناس نقون كرا أدونك هي الدنيا إلا يجا وحي إلهي سيدي
iyagaa loogu talagalay dunida inay qaada u noqdaan, hoggaan u noqdaan. iyagaa loogu talagalay inay dunidu ku dayato. mansiladaa goormuu gaadhi karaa? ilaahay si cad buu qur-aanka inoogu sheego. waxaa la leeyahy wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shayئa waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun. ilaahay ballan buu qaaday baa alla leeyahy subxaana wa tacaala. wuxuu u yaboohay kuwa mu'miniinta ah ee camalka wanaagsanna sameeya, yacni wixii la faray fuliya, layastakhlifannahum fi lard, dhulka in iyaga subxaanahu wa tacaala uu makansiin doono ay khaliifo ka noqon doonaan. sidii umamkii ka horreeyey dariiqan raacayba ay u guulaysteen. walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum, waxaa alla makansiin doonaa diintii uu raalli uga noqday. maanta diinta waa laga cabsadaa oo madaxdeenna iyo dadkeena in badanoo ka mid waxay yidhaahdaan hadaad salaadaha meelaha ku tukato waa lagu caayi doonaa, ama garhka haddaad la yaro baxdo armaa irhaabi lagu, waa wax lala yaro dhuunto laga gabado. mumakan xataa fi diin ma tihid, daa siyaasad iyo maamul iyo wax kale ka kaale. xataa qof diintiisa ku faanaya u madax bannaan ama u arka inay waxyigii kama dambaysta alla soo dejiyay ay tahay ayaa meesha ka baxday. laakiin ilahay wuxuu leeyay walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna. muslimku maanta gaal unbaa laga cabsanaya. ilaahayna wuxuu leeyahay haddaad jidka raacdaan cabsida amni baan idinku beddelaya. cidna kama cabsan doontaan, cabsidiinna amnaan idinku beddelayaa baa ilaahay leeyahy. laakiin shardigu muxuu yahay? yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay'a, in ilaahay la caabudo jidkiisa la qaado waan cidna wax lala wadaagin. ama haddii weecad ku yimaado waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum alfaasiquun. ayuha alaxiba, guushu ma foga haddii waddadeeda la qaado. guushu haddii waddadeeda la qaado ma foga. dadku hadday ilaahay tala saartaan oo raacaan oo guulaysanayaan walow bacda xiin. afghanistan 45 dowladood oo masiixiya isugu tegay inay dumiyaan. dunidoo dhan baa isugu tagtay. laakiin markay wuxooda haysteen maalinba mid siduu u dhuumanayay, kii u dambeeyey dayarada halhaleel buu ku fuula. laakiin waa marka imtixaanka u adkaysteen. waa bacda 20 sana, 20 sannadood markay imtixaanka u adkaysteen. welina imtixaan kaley gelayaan oo nicmada lafteeda waa imtixaan kale. ilaahay subxaanahu wa tacaala, culammadu waxay idhahdaan laba sunno ayaa jirta oo dadka lagula dhaqmo. midi waa istinaa'i, asalka maaha. midina waa qaacidada asalka. midi waa istinaa'iyo waa masalada mucjizaadka iyo karaamaadka iyo wixii la halmaala. laakiin innaga laynama odhan karaama suga, karaama idiin soo degayso saasaa yeelaysaa. ee waxaa layn idhi asunna aljaariya la dhaqma, sunnada jaariga ah. laba qiso oo ka mid ah siiradii nebiga calayhi salaatu wassalaam. ilaahay nebiga mar wuu sharfay iyadoo mashaakilku ku tiro batay oo dadka kuwii ugu dhowaa ee difaacayay ka dhinteen. abi aalib dhintay oo khadiija dhimatay oo caamul xusni la galay oo dhib badani
ومسلمين تلطم يولا قراعي إلهي قريش دول كلمة قوينين ولا ما وران قريش ما دول كلمة قوينين يا يدكم ماشي غبصدا هذانا سنة خارقة باتميو إلهي النبي جيسل من باب التسلية والتشريف بينادي آيات ربي وين لا تصي يا إلهي نكون كان معموله لكن هذه قال لقى رب وضدها إن هذا يسوع وما هذا هاي هبين كودا لقى قاضي مكو سلاح بين بدي بلقيه ما هاي بيت المقدس سلاح بين بدي بيت المقدس لقى قاضي حاجة لقى بتسي السماوات العلى حادثة الإسراء والمعراج وانا غانا لنريه من آياتنا الكبرى بيلاي إن لا صوت السيو آيات كواوين الربي نصو أركو لكن تاسبع علماء ضيدان تشريع ما هو تكريم يتصلي يوحلا ملا أما تي شرعي هاي الهجرة النبوية بقولال ميل بل ملايين ميل بل تريليونز إلا 7 سماوات بلا دافين وما لها بني آدم بحسابات كيسا إنه السماء والدنيا بل لو تاقلاي وحن قنطال الدرائية وحن تلسكوب وحلقوها غيو مصابيح السماء الدنيا بين ولد داورنا هل إذا حدقاني وحن ورنا من محيي سماء الدنيا مصابيح هي إذن سماء الدنيا انت دافه فوق 7 السماوات بلا قبتسي سماء الدنيا مركز مكور ربنا الله يدادا كن سنضاد بالنالكاسي سو سعودية انتنا سنضاد بسو سعود waxaa soo dhan ilaahay awoodiisa wuxuu ku tusiyay in habeen qura lagu dhaafiyo oo hadana la soo celiyo ama meel 500 kiiloomitir u jirta 14 habeen buu nabi maxamed soo makiya madiina intay isu jiraan 500 kiiloomitir 500 kiiloomitir 14 habeen baa la socday oo buuro la galay oo godod la galay oo wadadii toos u qabanaysay aan la raacin koonfur looga kacay buurahan xagga Yemen soo xigta loo soo kacay oo hadhow aan dib loo noqonin saaxilka la baray xeebta laga wareegay oo inta la dhuumanayay oo khidada hijrada in badan baa siira akhrisateen waqtigu magaalada ka baxay saadkooda siday u qaateen safarka ciiday ugu tala galeen labadii neef ee muddada la sii naaxinayay gaalkii loo soo dhiibtay labada neef ee u sii kaxeeyay godkii lagu dhuuntay dadkii cunada ugu keenayay meesha yani waxay ahayd mashruuc dhan oo muddo la diyaariyay hadday tahay warka sida loo helayo hadday tahay cunada sida loo helayo hadday tahay sida loo safrayo hadday tahay sida loo raad godanayo mashruucaas buu nabigu sameeyey 14 maalmood buu sii socday waa dhacday بعض الكرامات والمعجزات انتي دحدة لسي سعوديين يدعم هذا لكن الخطة العامة خطة بشرية به مدة كذب النبي محمد قال عليه الصلاة والسلام قال هذا مدينة هاي تلمام يسا واتني تشريع ووضد الله ينوغو طلق علينا مرة انت المالس كفر فريسانون انا إلهي وإلهي cirka gantaale ka soo dagaano la waayo waxa gaal dunida joogaba inoo waynu soo harnay ilaahay hadduu doonayo la aamana man fil ardi jamiican sawirka ilaahay isagu ma odhanayo haddii alla rabo dadkoo dhami way islaami lahaayeen laakiin waxaa la rabaa in la inay taxaabo in la eega raganimadeena iyo dadnimadeena iyo iimaankeena iyo caqiidadeena iyo intaynu rabbi rumaysannahay in la eego inta aynu rabno inaynu adkaysano ama wax iska celino saa daraaddeed waxaynu leenahay war sunnadu baryo qura maaha baryadu waa ka mid in ilaahay la baryo waa ka mid laakiin raganimo kale u baahantay waxa dhacayaana innaga inaga yimaadeen ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
بدنا با إلهي لين النبي يقول رب لو نسبي يعني كوح نبي الله صعطة درري إلهي وحب السفية صفات كنا مين يتشبن إلهي جد كيس أو حد بقوا هلاي ما يضعيف من يستيب با إلهي لي إلهي نوح جعل يا ليل قوة الصبرة قلنا التنوح كل عيون نسبية وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا هذا اللي بيتمي وحي شيغان يعني دفتو إني حق وذا كنتنا حق ربنا عليك إيمان مركاسي ربي وحي ويدي سنية إله الدنب يجا إيا إسراف كيجا إله الناف بيلي مركاسي إلهي وحي ويدي سنية شيء لبعضها وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إله قمت يدنا الصبح قال لنا نوغهيل أما هذا ضد استكانة يضعف في وهن يلا شيء بين الله ما ضاع تراده إلا هو قال لنا نوغهيل ده ما هي طريق الصحة كاسمة طريق الصحة وقوة درر ريان السدي بيننا نفي مال بحنية إلهي إليه والله يحب الصابرين وحي نبي منه وأركا إياك التقصير خود يدب بقوده يحيي إلهينا ويديسني إنه قمت دودا سوغو أو وهي ليقوى قال إلهي قوى وحيري فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين قروبك إلهي وحلي رب سبحانه وتعالى وحسيه أبا المركي أدون وقوشي النسرية وحي إرادين ربي واسيه وحسن ثواب الآخرة آخرنا أبا المرفي عن بالسي والله يحب المحسنين أيها الأحبة درسي يعني ما كان صعوك وبوحيها ذكي ووناك سنة إلهي قرآنك كقور رمي والله يتحامل إيمان كودا الله يتحامل عمل كودا الله يتحامل نولشو دنبالغو يتحامل امتحانك أمرك يكون قوليستين أي سيدي اللي الربي وقصوا بحين أي إلهي سبحانه وتعالى نتيجة في عسي أي إلهي نتيجة في عسي أما ضد أن ربينا يوحبق أبطال بل عكسي أو صعدة حق الله يريد مرمو يعني حق كلام مريا يا با عصر قد بعجبت قبا وحكم إذا قفوا أنتم إلهي سرتابوا اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكد عيني إلهي أنتم سرتابوا حليها إله قوة عروتية قوة اللمي وددود هاي مرين الباب كمركو كبحنا وحاو كنا واقعيا نمكا هدينا الرعين قولي سمين ونجيبك إله صراط المستقيم كي غير المغضوب عليهم كي غير عليه صراط المستقيم كان يمري مركو دبدا هو بحنا له غير المغضوب عليهم كهدان الراعين هي ولا الضالين للي باني ماي حق الامرك صلاتنا الرب شيء ما قلنا والله انه يتحامي ايضا انت يسوافق يسوق صلاه دين هي سوقين انت يسوافق صلاه دين هي سياسه دين انت يسوافق صلاه دين هي اقتصاد كين انت يسوافق الهي وحي انه له هرتاغنا كبر يينو هي فعل كاينو سمينينا إلهي نوح لي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب سيداتهين إلهي نكدين ما يبا صحابتي بدو أحد لغير سيداتهين إلهي نكدين ما يو إلا الله يدين كلا الصوعه وكوى وناكسن يكوى حمائي كلا بحار وما كان الله ليطلعكم على الغيب غيب كان الله يدين دالعسين ما يلا يدين رمى ما ينتا سوى مرافقين انتا سنوى حنطعي وغيبك أركي ميسا إما حايدا كلا ساريا dhibtaniyo tajaaribtaniyo noloshataniyo waxa kan waxan baa dadku ku kala muuqanaya baa ilaahay leeyahay
ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إلهي رسول بو إذن صدر يا بالله تلمامية إلهي رسوشي ساق رمية الله الرمية هدي إيماني الله كعبس طريق وضع راعدانا فلكم أجر عظيم بإلهي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بإلهي وإن تصبروا وتتقوا ولو شرطك لي تقوى دي الله بهنا هي صبر كي الله بهنا هذا الله تمادان لا يضركم كيدهم شيئا بإلهي وحي حرق مريق يا مردن وحبيد ما يلي كلام سيدي دابا واحد وقاته قفك كبره الكبر وحكود دي ليا دب انتو وادكيستا ninka si xaq u dirarka ah dib intuu u adkaysta waxa la isku dhaafaa waa intaa maraykan wali waa xoog badan yahay wali dayaaradihii iyo dadkii iyo wixii uu haystaa laakiin 20 sano markuu waday wixii soo gaadhayay uu adkaysan kari waayay kuwii laakiin kabaha caddaayaan kababa haysana ee cagaha madhnaa ee labada go ee yaryar huwana ee bunduqii lagu dagaalami jiray dagaalkii labaad ee dunida sitay markay adkaysteen ninkii xooga badnaa waa adkaysan kari waayo uu soo baxay idan ilaahay wuxuu leeyahay haddaa alla ka cabsataana sabirtaana laa yadurukum kayduhum shaya kaydkooda waxba idin yeeli maayo ayuha alaxiba ballanka ilaahay wuu cadiyo meel buu yaallaa imtixaanaadkuna dunida way joogaan inagu ma imtixaanka ku guulaysanaynaa saynu hello ilaahay ballankii ila ilaahay wuxuu yidhi laa yanaalu cahdi adaalimiin idan innaga inugu xidhantay innaga markay inugu xidhantay waxaynu u baahannahay qof waliba inuu isbeddel sameeyo qof waloo inaga midiba cid gaaroo la sugaa ma jirto qof waloo inaga midiba inuu isbeddelka sameeyo idan waddadu way soo dhowaanaysaa kullama isbeddelkeennu bato kullama diinraaceennu bato kullama wixii laynaga rabay aynu ku talagalna inay fulinna way dhowday ilaahayna wuu ina waafajin reer banu israa'iil markay jabeen iyagoo nebigoodii la joogo oo raggoodii la joogo ay idhahdaan ilaahayow madax noo soo saarna hoggaamisa waa naga dhammaanteen hadda madaxdu markii hore waa la joogtay oo ku dhex jirtay laakiin dawakii waa la wada jabay ilaahu cid noo soo saar bay idhahdeen mid iyaga ka mid oo mid cirka lagama keenin mid iyaga ka mid ah ilaahay ka soo qabtay oo yidhi kan baa idin hoggaaminaya oo kuwii marmarsooday ee yidhi maxay kuwa lacagta le maaha iyo kuwa isaga qoladan garanaynaba ilaahay wuxuu yidhi laba halba ku qaata siduu nebigu sheegay anaa idiin dooray in allaha astafaakum ilaahay baa idiin dooray ka labaadna mu'ahilaadka qiyaadada wuu wataa cilmi iyo xoog meeshan waa la dagaalamaye labadabana wuu wataa taktiig iyo farsamadii iyo xooggiiba wuu wataa haddaynu roonaanno oo jidka qaadno waa laynaga soo dhex heli doonaa kiina hoggaamin lahaa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin